bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan daawadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa barteen YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena caawa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay qorshaha dalka dib loogu soo celinayo askartii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea xogo cusub oo soo baxaya ayaad warkeena ku daawan doontaan ra'iisul wasaare Roble oo kulan degdeg ah isugu yeeray hay'adaha ammaanka dawladda xilli al-shabaab daqiiqado gudahooda ay weeraro iyo qaraxyo ka fuliyeen caasimadda Muqdisho ciidanka haramcad oo fal yaab leh ku kacay kadib qaraxyadii xalay ee Muqdisho iyagoo jirdilay wariyaal tagay goobaha ay al-shabaab weerareen wararkana kalena waxa kamid ah xildhibaanmaha salaad oo qaatay shahaadada murashaxnimo iyo rajadii gudoomiye Caliyare oo dhimatay wararkii ugu dambeeyay doorasho bari ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ayaad warkan ku daawan doontaan wararkaasi iyo kuwa kale ayaad daawan doontaan waa habeen Arbaca ah Khamiis ayaa soo galaysa 16 Febraayo 2022 haddaad nagu cusub tahay subscribe sar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararkaan halkan soo dhigno aad u daawato u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi waa hagaag marka la kulan noocan aan ku bilaabo wararkeena warbixino cusub oo la helayo ayaa sheegaya inuu meel fiican marayo dadaalka ay dawladda Soomaaliya ugu jirto in dalka dib loogu soo celiyo ciidamadii tababarka loo qaaday ee dalka Eritrea sida uu qorshuhu yahay dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa inay ciidamadan dalka dib ugu soo celiso 2 ilaa 3 isbuuc soo socota haddii aysan waxba iska bedelin qorshaha iyo dadaalka hadda socda sida aan ogaanay qorshihii ugu horeeyay ee ciidamadan ayaa ahaa in dalka dib loogu soo celiyo bishii September ee sanadkii hore balse waxay dib ugu dhacday arrimo la xiriira dhanka diblomaasiyadda dhowr jeer oo la doonayay in ciidamadan dib loogu soo celiyo Soomaaliya ayaa fashilmay mana lahayo ilaa ay hadda sababta ay ciidamadaasi u joogaan dalka Eritrea maadaama ay mar hore dhameysteen tababarkii loogu talagalay tirada ciidamada Soomaalida ah ee tababarka loogu qaaday Eritrea ayaa lagu sheegay ilaa 5167 inkastoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in tirada ay intaasi ka badan tahay oo ay ku dhowdahay 10000 ciidamadan ayaa dalka Eritrea la geeyay intii u dhaxeysay Agoosto 2019 iyo June 2020 waxaana in ciidamadan tababarka loo qaaday ku heshiiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki warar ay heshay warbaahinta qaar ayaa sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray lagu qaaday inkastoo ay dawladda Soomaaliya arintaasi si weyn u beenisay qaramada midoobe NGO-yada madaxa bannaan ee Tigray iyo hogaamiyaasha Tigray ma aysan keenin cadeyn sugan oo muujinaysa in ciidamo Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan National TV ayaad kala socotaan wararkan subscribe saar oo nagu soo biir kana mid noqo saaxiibada nagu xiran markana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray hay'adaha amniga dalka kadib falalkii al-shabaab ay xalay ka geysteen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa shir gudoomiyay kulankaasi oo ahaa mid degdeg ah waxaana looga hadlay xoojinta amniga xilli ay dalka ka socoto doorashada golaha shacabka kulanka uu Roble isugu yeeray saraakiisha ciidamada ayaa waxa ka soo muuqday inta badan saraakiisha ciidamada kuwaasi oo ay kamid ahaayeen taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka dhulka taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda NISA iyo taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Roble ayaa ugu dambeyntii faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu xoojinayo amniga caasimadda kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo saraakiisha ciidamada ayaa imaanaya saacado kadib markii ay qaraxyo iyo dagaalo toos ah xalay saq dhexe ay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weerarka koowaad oo ahaa mid xoogan ayaa waxa lagu beegsaday saldhigga degmada Kaxda waxaana gudaha u galay xubno ka tirsan al-shabaab oo weerarka ku qaaday halkaasi waxay sidoo kale dab qabasiyeen qaybo kamid ah saldhigga kadibna waxa la sheegay in dagaalayahanadu ay horay u sii qaateen 2 gaari oo nooca dagaalka ah weerarka labaad ayaa isna ku bilowday qarax oo uu xigay dagaal toos ah waxaana lagu qaaday xaafadda Daarusalaam waxaana la sheegay in qaraxa lagu weeraray gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Hilowa oo ku sugnaa halkaasi waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh sidoo kale xoogaga al-shabaab ayaa weeraray saldhigyo ku yaala calamada ilaa ceelasha biyaha halkaasi oo rasaas xoogan laga maqlay kadib markii ay difaacada kala hortageen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM si kastaba
weeraradan ayaa si xoogan looga dareemay guud ahaan caasimadda oo dhan xilli magaalada ay ka socoto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka. wararka qaraxaasi intaan ka bixin, ciidanka booliiska gaarka ah ee Haramcad ayaa isugu daray jirdil iyo xarig sharci dara ah qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho oo isku diyaarinayay tabinta dhibaatadii ka dhalatay weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda. wariyaasha xariga iyo tacdiyada loo geystay ayaa aaday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir si ay u soo tabiyaan warar ku saabsan weerarkii ka dhacay degmadaasi kaas oo ay mas'uuliyadiisu sheegatay kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. ciidanka ku kacay falkan lagu dhibaateeyay suxufiyiinta ayaa waxa horkacayay taliyaha ciidamada Haramcad Fanax oo kamid ah saraakiisha ku caanbaxday xadgudubyada ka dhanka ah xarumaha saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha. wariyaasha jirdilka iyo xariga loo geystay ayaa magacyadooda waxay kala yihiin Maxamed Cabdi Cali oo loo yaqaano Maxamed Baari oo ah muuqaal duube ama kaamirmaan ka tirsan 5 Somali TV iyo agaasimaha telefishinkaasi Aways Maxamuud Jilcow, sidoo kale Ismaaciil Maxamed Muuse iyo Maxamed Yuusuf Xasan oo iyagu markaasi ka tirsan telefishinka Somali Cable. warbaahinta ayaa heshay sawiro muujinaya suxufiyiinta oo laga qaaday qalabkii ay ku howlgalayeen dabadeedna xabadka dhulka loo dhigay isla markaana uu agtaagan yahay taliya Fanax oo horkacayay ciidanka tacadigaasi geystay. qoraal kadib falkaasi ay baahisay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in la xiray ciidankii falkaasi geystay isla markaana laga qaadi doono tallaabo sharciga lagu marsiinayo. ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada Haramcad sameeyaan fal noocan oo kala ah, waxaana ka horeeyay tacadiyo ay u geysteen qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed. haddaba afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa raaligelin saxaafadda ka siiyay dhibaatadii iyo tacadigii maanta lagula kacay wariyaashaasi. dhammaan wariyaasha guud inta ku hadasha afka Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba waxaan maantay oo taariikhdu tahay 16 bisha 2022 rabaa in aan raaligelin buuxda u soo jeediyo wariyaasha Soomaaliyeed ee maantay sida qaladka ah ay ugu xadgudbeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo loo geystay xadgudub ku aadan shaqadooda. waxaan leeyahay guud ahaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed waxaan ka raaligelinayaa wixii goobtaas ka dhacay. saraakiishii hogaaminaysay ciidankii falkaas geystay iyo ciidankooda bana taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aad uga xumaaday arinkaas ayaa wuxuu amray in la soo xiro, waana xiran yihiin. taas aniga idin xaqiijinaya. taliyaha iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo taliya-xigeenadaba waxay aad uga xun yihiin wixii maanta ka dhacay Kaxda. saxaafadduna waa saaxiibka koowaad ee booliiska Soomaaliyeed. waxaan idinka leenahay wixii maanta goobtaas ka dhacay ma ahan wax raali uu ka yahay guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan madaxda sare ee booliiska ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taliya-xigeenada iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadirba. saxaafaddu waa saaxiibka koowaad ee booliiska Soomaaliyeed, waa isha wararka iyo xaqiiqda ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed, waa kuwa har iyo haween baahiya dhibkana u mara qaxarkana u mara inay xog dhaba ka keenaan goobaha wax ka dhacaan. weli wararka National TV ayaa daawanaysaan. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka. guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa shahaadada murashaxnimada guddoonsiiyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo 5 sano ee la soo dhaafay kamid ah xubnihii sida weyn u mucaaradsanaa xukunka madaxweyne Farmaajo. xildhibaan Mahad Salaad oo u sharaxan kursiga Hoob 147 oo uu ku fadhiyay sanadii la soo dhaafay ayaa waxaa la tartamaysa Shamso Cabdullaahi Maxamed oo sida muuqata ah malxiis aan rajal laga qabin inay guuleysato. xildhibaan Mahad Salaad ayaa la hubaa inuu ku soo bixi doono doorashada kursigan kadib markii laga xiray dhammaan xubnihii doonayay inay loolanka adag geliyaan. arrintan ayaa ka dhigan in gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo kamid ah ragga sida weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo uu si rasmi ah u waayay kursiga Hoob 147 oo loo diiday xitaa inuu u tartamo ayadoo laga celiyay garoonka Aadan Cadde.
Cali Yare ayaa sanadihii la soo dhaafay waqti iyo qarash badan geliyay sidii uu u heli lahaa kursigan. Qoorqoor ayaana ugu dambeyntii go'aan ku gaaray inuu kursigan ku soo baxo Mahad Salaad. Gudoomiye Cali Yare oo dhawaan loo diiday inuu u safro Guriceel ayaa madaxweynaha Galmudug ku eedeeyay inuu isaga ka dambeeyay arintan. Cali Yare oo la kulmay madaxweyne Farmaajo si uu kursigan u helo ayaa loo soo diyaariyay, waxuuna madaxweyne Farmaajo kursiga Cali Yare dhaafsaday kuraas kale oo ka taalay Galmudug oo uu markaasi u fududeeyay madaxweyne Qoorqoor. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmeena wararkeena soo socda, nabadgelyo. warar noocee ah ayaa doonaysaa? ma wararkii ugu dambeeyay? ma dhacdooyinka ka yaabiya mise kuwa ku dhiirigeliya? ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? hadday jawaabtaadu haa tahay National TV, ka dhiga wehelkaaga. booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga.